Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kan waa muuqaal kale. Muuqaalkan waxaan rabaa inaan ku sharaxo qaabkaad isaga ilaalin kartid Alibaba tuugada, ood ugu adeegin kartid oo noola xiriiri kartid sablayerada kuwa saxda ah, kuwa tuugadana aad isaga ilaalin kartid. Waa muhiim lacagtaada meeshaad ku diraysid inaad kala ogaatid. La soco muuqaalka. Saaxiib yaal, ku soo dhawaada muuqaal kale. Channelkan waxaan uga hadlaa arrimaha ganacsiga iyo sida online-ka loogu shaqaysto. Haddii ay tahay marka ugu horeyso channelka aragtid, fadlan subscribe dhac ku sii. Alibaba sidaan hore usoo sheegayba, muuqaal ayaan kusoo sharaxay waxa ay tahay. Haddii aad soo daawan waa soo daawan kartaa. Waa suuq ganacsi oo online ah oo dadku ka soo adeegin karaan. Marka suuqan Alibaba waxa waaye waad ka soo adeegin kartaa alaab sheyga aad u baahatid iyo weliba si jumla ah ayaad ugu soo adeegin kartaa. Waxaa jira dad sablayer ah oo factory-yaal warshadooyin oo alaabaha sameeyaan. Ayagaad stock ahaan ugu soo qaadanaysaa. Sidoo kale dhar oo kale rabtaa, dharka ayagaa kasoo stooganaysaa. Kadibna ayagaa kuu keenayaan. Marka haddii aad Soomaali joogto xitaa waad ka adeegin kartaa. Muuqaalka qaybtiisa dambe ayaan ku sharxi doonaa insha Allah. Balse marka hore waxaan rabaa inaan idiin sharaxo sidee lasaga ilaaliyaa scammerska ama tuugada Alibaba. Taleefankayga shaashadiisa ayaan rabaa inaan screen-ka idiin soo saaro, idinkana ila socdo. Okay, Alibaba waa kana. Wax kasta ayaad ka helaysaa aad u baahatid. Hadda waxaan qorayaa oo kale handbag-yada ay gabdhaha gataan oo kale. Handbag aan qorayaa. Handbag. Marka waxaan rabaa inaan raadsado sablayerada saxda ah. Calashan kuwan aan ahayn tuugada la isku halayn karo. Ma ku dhihi karo kulligood oo tuugo oo ma hubo. Waxaa iska dhici karta dad si wanaagsan oo sax ah ugu adeegta inay jiraan. Laakiin haddana waxaa fiican kuwa la isku halayn kara inaad adigu lacagtaada aad ku bixisid. Markuu aad qortid handbag oo kale waxaad raadinaysid. Aad tusaalaan ka soo qaatay, laakiin adigu waxaad u baahan tahay qaybta search-ta ayaad ku soo qoraysaa. Kadibna waad soo raadinaysaa. Marka step-ka koowaad wuxuu yahay waa inaad qofka aad ka adeeganayso uu yahay verify. Verify maxaa waaye? Hadda tusaale qofkan ugu horeeya waxaa ku qoran calaamada tigta ayaa saaran, waxaana ku sii qoran verified. Midda labaad aad iska eegaysid ayaa waxay tahay inta sano oo qofkan suuqan ku jiray. Qofka marka suuqan ku jiray, haddii muddada uu ku jiray ay ka badan tahay 3 sano iyo wixii ka badan ay tahay, qofkaaseeto waa qof aad isku halayn karto, waad wax ka iibsan karto. Marka muhiim waaye markasta qofka aad wax ka gadanaysid iska eeg inta muddo uu ku jiray. Tan saddexaad ayaa waxay tahay qofkani trade assurance uu ku jiraa. Marka saddexdaas trade assurance-ga verify-ga macnaheedu waxaa waaye in qofka verify uu yahay. Verify waxaa waaye haddii aan idiin sharaxo. Kambanigan Alibaba waxay sameeyaan qofka factory-yaasha alaabta raba inay ku iibiyaan Alibaba. Alibaba waxay u diraan dad agency-yaal ah oo soo xaqiijiyo waxay iibinayaan inay xaqiiq tahay. Kadibna waxay sanadkii ka qaadaan adiga lacag. Xadadeeda hadda ma xasuusto. Lacag ayay ka qaadaan sanadkii. Marka 10,000 tahay maleynayaa. Marka lacagtaas ay ka qaadaan kadibna waxay siiyaan calaamada verify-ga. Tan kale muddada uu qofka ku jiro waa inay 3 sano ka badan tahay. Midda saddexaad trade assurance. Haddaan idiin sharaxo trade assurance. Trade assurance waa hubaan in lacagtaada ay guarantee tahay oo meel safe ah ay ku taalo. Sida waa inaad meel damiin ah aad sii dhigatay. Si hodhow alaabtii aad dalbatay haddii ay waqtigeeda kugu imaadi weyso ama alaabtii aad dalbatay nooceeda noqon weyso oo wax kale lagu keenay ama orderkaaga uu meel kala aaday qaldan ama uu ka soo dahay, Alibaba waxaad ka codsan kartaa
refund oo lacagtaada dib lagugu celinayo. Marka haddii qofka trade assurance uusan ku jirin aysan lahayn trade assurance waxaa waa inaad ka fogaataa. Marka haddaba saddexdaba qof haysta supplier haysta ayaan isla raadinaynaa isla aragno. Okay. Kuwan handbag-yada noocyo badan bay meeshan ku jiro. Waxaan raadinayaa company verify. Okay, company-gan aan fiiriya. Kana bag-yada noocyada ugu khatarsan ugu shidan bay gadayaan masha Allah. Okay, trade assurance waa tana. Trade assurance uu ku jiraa protect your Alibaba. Okay, sida oo kale waxaan ka fiirinayaa waqti inta sano kusoo jira qofkan. Waxaa waa inaan tagaa profile-kiisa. Yes, qofkan waa verified supplier, waa supplier verify garaysan. haddaan profile-kiisa xitaa kusoo dhufto visit store ayaan leeyahay. Storekiisa ayaan waxaan u aadaya si truth ah si aan u eego bal storekiisa. Okay, saddexdii aan rabay wuu leeyahay. Hadda qaybta profile-kiisa kala sii tagaya. Waa aragtaa CN waxaa waaye China ayuu joogaa 10 years ayuu ku jiraa 10 sano. Trade assurance wuu leeyahay wuu ku jiraa sidoo kale verify waaye. Marka qofkan waa company weyn oo factory waa isku halin kartaa. oo kuwana hataa profilada ay soo dhigeen tusaalooyinka ay soo dhigeen ayuu sameynaa alaabti sida alaabtu diyaarinayaan oo warshadan masha Allah intaas waxbaad ka dalban kartaa. Marka waxaan rabaa inaan bal ogaado ra'yigiina haddii aad doonaysid qaabka aad ugu adeegan lahayd oo lacagta ugu bixin lahayd insha Allah muuqaal kale aan kasoo diyaarinayaa habeen dambe insha Allah. Marka haddii aad Soomaali joogto oo aad rabto inaad Alibaba wax ka iibsatid Alibaba supplieradooda horta alaab Soomaali ma keenaan laakiin solution ama xal ayaa jiro. waxaad raadin kartaan Somali Cargos ama Somali Freight Forwarders qolo loo yaqaana jira. qolooyinkaas aad raadinaysaan hataa waxaa ka dhex raadin kartaan Alibaba gudihiisa. qolooyinkaas aad la xiriirisaan waxaad heli kartaan xitaa qolooyin xafiis ku leh xamar xafiisadooda tagaysaan face to face ay la dhili garan kartaan ama online ahaan ayaad ula hadli kartaan. WhatsApp number kala qoranaya aad ka qaadanaysaa la xiriirisaan. waxaa leedahay alaab ayaan rabaa in Alibaba ka gato channel iga soo qaado kadibna lii keeno Soomaaliya kadibna maxay qiimaha ku heshiinaysaan si fudud alaabtaada Soomaaliya ayaa lagu keenayaa. marka waa mahadsantihiin qof kasta oo muuqaalkan dhameystay aad baan ugu mahadcelinayaa. sidoo kale qofkii like saara qofkan like saar waxaan ka codsanayaa like saara si dad badan u gaaro muuqaalkan. subscribe haddii aad ku cusub tahay channelka aad iyo aad waad mahadsantihiin. isla socod wanaagsan la socdo muuqaalka xiga insha Allah.